Assalamu alaikum daawadayaal kasoo dhawaada vlogayga maantay maxaa la dhahaa meeshaan baa noogu dambeysay vlogii hore vlogay to East Africa Nairobi Kampala marka maxaa la dhahaa wallahi videogan wax badan waxa waa 2024 last summer baa tagay but you know what I just vlogging it's not easy inta duubi karo waa isku dayay haddana markaad duubtid wax ku dhiman editing aniga wallahi ano Africa joogaa rabeyna soo edit gareeyo isla markii soo tuuraba you know when you're having vacation markaad you're enjoying yourself I always like igama qabanin waxna edit gareeyo aniga caadadeyda ah ina just lazy bro like I just feel like not doing any editing fancy TikTok iyo iska daawanaya but hadeertan maanta iga qabatay I'm like what am I doing I want to be posting my kaleeto but anyway wariyaan igu daalanin inta waxa waaye inta missionkii to Nairobi gabadha saaxiibtay friend / la gursanaya marka Kampala the mission joogno but hadeertan waxaa joognaa I don't know how to explain this anyway hadal badan waxaan joognaa Nairobi. This is my girl, she's getting married. How beautiful is she? Wallahi aros is not easy. She's dressing here, time to go. I don't know where holkin let to go marka hadda waan kanaana ka holka u socono arooska u socona yaa shiiq ana wada shiiq marka wax gaari isdaba ordaayo. It's amazing to experience this because it's my first time ever like Nairobi wedding atagayo so by the way guys aniga hadan reer America you know like oh my days aniga horta especially Minnesota right holka Africa Nairobi is so huge it's massive wayne but mashallah so qurux by the way wax shock igurida it's not shock but it's surprising like arosada gabdhaha they just wear their isku days their abayas and I'm like wow the propaganda that we don't need here in qurbaha waxa waaye it's not a must. We're falling for the propaganda to always buy all the time. Makiste, like every time I'm just like here you can just wear whatever a cute dress, a cute abaya and nobody's judging you. Like I just love that freedom to wear whatever you want without being judged. Just like mamoyinka gabdaha waxirban hatta kuwa waxay soo xirana niqab mafant I'm like yo anyway enjoy this beautiful wedding daawo sida nabad ku daawo سميحة قليل
Ladaha, she gives me like main character syndrome, guys. Yo, that's just how I think. Like, oh my god, the whole time she was just like, girl, chillax, relax, bro. She gives me like main character syndrome. She's not giving main character energy, she's giving main character syndrome. Anyway, gabdaha ana la yaaba, guys. Oh my god, so udele barabar kool game mahawa. Anyway, this is my favorite part. Danto, see that. Guys, iga raali noqdo, like waa iloway maanta dhan ina vlogaya, you know, for YouTube. Marka, yeah, sana u duduubay for Snapchat-kii waa follow gareyn kartiin, waxaa aan Ismail 12, but when he said that's mommy, like, oh my days, I never knew this guy until my friend was like, he's all that. I'm like, okay. Ani marka qofka ma aqaaniya, marka la qof aqaano ka helo ani waa ka helaa, like what the heck, chill. Copycat am I don't know, I think I'm learning the car. Markii ninkan ma aqaaniya, like heestiisa halba xaba aqaana maqle, but my friend was obsessed with him. She's like, oh my god, mommy. I was like, okay, I'm okay, me too, mommy. Seriously, I did a little TMI, like too much information. Wallahi, like my cousin, my friend, like so many people had a mommy, he's so cute. And I'm like, and you know, oh, he's okay, you know, whatever. But then when I see him, and then he was so sweet, like marka video qaadana, he was like looking at my camera. I was like, yes, it's born, you know. And then my cousin was like, oh my god, mommy. I'm like, girl, go take a picture, he's so sweet. And then I said, no, orad bah wallahi maskaxda ku dhufana maxaa iska dhigay miskiin ana soo jiiday video wala qaada ma fahanteen. Marka that's the story of how like I became mommy team, but now I'm not his team. How hamaqle Suri waaye, he hates Somalia, he prefers Ethiopia, which is okay, but still like mansurinimada waa kala noqda crashkayga. Sorry awalba waa la kusoo dhiixaye, I was being influenced, but now I take it back. He no cute no more, but he's looking fine in this video. You know who else is looking fine? Our beautiful bride. She looks so cute in yellow. That yellow is my favorite color, one of my favorite colors, and she's looking so fine. Guys, after watching this video, I was thinking I was looking delusional in case mommy keeps looking at my way. Or is it my cousin or my friend? I don't know. Look at this girl. Oh my god, get off.
ani haddii dhaho which is your favorite song, is the song heesta liidhaho heesta soomaalida ugu jeceshahay number 1 ka mid ah ii sheeg. Heestan waa heestan soo jeclahay oo qaaday hebelow anshax. I don't know his name. anshax la xasuustaa, but that song chef's kiss waay, masha Allah. decoration kan fiiriya, but decor kan fiiriya. Ani Nairobi waxaa usoo guuray arooskayga inta lagu dhigo bas siduu quruxsan yahay. Oh my god, ash ala aroos, ash ala decoration, ash ala hall. Yeah, babo, I love it. It's so beautiful. We just need a face to face. You could pick the time and the place. arooska kadib maanta arooska xogteen BBS Mola League. Wow, masha Allah, qurux badana. Laakiin meeshaan VR carisiga waxa lagu dhameeyay wadamka sadaan freeway-ka ku wada gaariya waxa si kadab markaas laga dhahay naftas waxa isku heesid haye baa ku dhahay waa kanaani oo hadda iska dhigay naag oo tusinay my skills, my driving skills oo ku dhahay lacagtiisa salayga cunada daqan laakiin still it was so fun daqannimo man. markaas waxaas dhahay easy way easy kani waa lagu gudbidina ku dhahay meesha but it was so fun. halkaas ka daawanaysa meeshaas TV yirisa. I was like enjoying, and then waxa ku dhahay soo fariisa midaan Hollywood gaari ma qaani dhahay what better to learn how to drive than this, so much safer. Why markaas ku dhahay haye weeyashe. It was so fun, it was so beautiful. Why BBS mo markaas la dhawaya Somali iskale ala wadankiina sama u dhisatiin. Oh my days, so beautiful, we enjoyed it. Anyway guys, waxaa sugayna dad kale ma faanta intaas ka fariisanabo. marka gaariga VR kadib waxaa la geeyay VR kale halkaas ku yaal oo horror ma duubin kaas, laakiin oh my days cabsi oo ahaa VR kaas dada sugayna ma faanta wayna ku soo daaheen. bes marka BBS Mall hadaa imaado waxaa dhahay waa Panda tea ina cabba. waxaa la dhahaa social media ku arkay iimaanka iga soo riday. Finally I get to try Panda tea guys, so macaan waaye. hadaa Nairobi tagtiin you better try it. wiilka iskalena maskiin waaye meeshuu joogay maalintaas. Anyway bacdal then waxaa imaanay maxaa la dhahaa roller skating. roller skating aldaray af Somali waxaan u dhahaa maqan. then anaga kulligeen ma garanayno, but we just came for the vibes. It's so pretty. dadka sameynaya iska imaanay. then anaka sujuula iska neemaano music markaa maqalno iska gashanayna ku dhahay.
مساجدك إمادي مساجدك صلاة ما شاء الله وبيبي اسمه يالو spacious beautiful clean ما شاء الله we need this in USA. It was so magical ما شاء الله. Unaweza fanya peke yako. Very fast. Unajua kutoa taya? Yeah, I know. Tunaweza gaarigii baa naga banjaray anigoo diyaarada u ordayno